وصحافتكaygu maanta wuxuu daaran yahay si aad u socotaan saaka waxa ka bilaabmay magaalada Laascaanood mudaharaadkaasoo ay sababeen ciidamada booliska ugu magacaaban nimanka jeegaanta meesha xoog ku haysta sida la sheegay ama wararku ay sheegayaan waxay la soo galeen magaalada baabuur booliisaaran iyo ciidan saaran dadna waxay jireen baabuur isku dhaceen dadna inay baxsaan bay damceen caruurihii iyo haweenkii dadkii meesha joogay ayaa dhagxiyay iyana xabad bay bilaabeen halka waxa ku dhacmay laba gabdhood iyagana nin baa laga dhaawacay hal golina oo kana waa laga furtay waxaana intaas sameeyay shacabkii meesha joogay ugu horeyntii wuu hambalyeynaa nimanka la dagaalamay dhalinyarada la dagaalantay qorigana ka furtay midkana ka dhaawacay waxaanu ka tacsiin labada gabdhood ee dhaawacmay Allah caafiyo waxaad la wada socotaan oo waxba ma qarsoonee in labada gabdhood dacay la soo qaado isbitaalka Garowe loo soo qaado inay diideen oo isor taageen ilaa haddana ay ku haystaan isbitaalka Laascaanood ayna leeyihiin annaga qaadano Hargeysa geelina iyo Burco taasina waxay tusaysaa inay Laascaanood soo bedeshay maanta Qudus baad moodaa inay tahay iyo Israa'iil oo kale dhaqan Soomaaliyeedna maaha dhaqan bani aadamna maaha waa wax laga xumaado weeye muddayna meesha nimanku ku caanamaaleen oo ay dhibka iyo waxa ay ka wadeen mid waa hambalyeynaya in dadku dareenkooda muujiyaan shacabka reer Laascaanood oo 12 sano madax laga fadhiyay inay muujiyaan dareenkooda inaanay rabin nimankan ee xoog lagu haysto waa ku hambalyeynaya waliba haweenka iyo dhalinyarada mar hambalyeynaya waxa moodaa raggii in doorkoodii maqan yahay saakun buu bilaabmay baan filaya waxaan u sheegayaa jeegaanta heshiis waxaan heshiis ku nahay inaan xabad kaga saaro Laascaanood xabad heshiis ku wataa sheegayeen iyagu waxay wada hadal baan noo socdo heshiis baan inaan wada hadlo heshiiska noo socda waa xabad inaan kaga saaro Laascaanood waan kaga saarnaa insha Allah waxaan leenahay dadka halka jooga hamoorag jabina muujiya dareenkiina waa dareenkayagu waa kiina weey weedna jiraaweey haddii Allah idmana dhawaan waa ka safayn doonaa haddii la haydmo gobolka Sool oo dhan Puntland way gaadhaysaa xuduudaheeda in badan baa lagu celceliyay macna ma sameynayso laakiin Puntland waa ka go'an tahay in Laascaanood iyo Sool oo dhan meel kasta oo ka mid ah Puntland ay gaadho xuduudaheeda waana gaari doonaa insha Allah kuwa raga ah meesha fadhiya aad muddo caruurahoodii iyo haweenkooda lagu duulaynayo ku dulqayrayana neecda qaadka iyo shubka bariiska iyo shubka sokorta iyo shubka saliidda qaadanaya iyo $80 waxaan leenahay war wax garta ilaahay baa rasaqa bixiye dadkiina soo raaca oo caruurtiina iyo reeriina wax ka celiya waa ognahay waxa ka jira meesha waana ogeyn waana ka dul waxaan ku bashaareen inaan dhawaan hadii ilaahay idmo anagoo dawladda Puntland iyo shacabkeeda aan ka dul qaadi doono shacabka iyaga dhibaataysan waana la dareemanaa waxaya dhaawacoodii ayaa la diidaya in la soo qaado dhaawacoodii ayaa la baktuureemaya haweenkoodii baa suuqa lagu jiidjiidaya wax laga xumaado weeye dhaqan Soomaaliyeedna maaha mid islaamna maaha iyadoo ay Ramadaan tahay maalmihii ciid lagu soo fool leeyihiin dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo dhagax tuuraya in dhashiika lagu jawaabo wax la qaadan kara ma mana qaadan karto Puntland waana idinka dul qaadi doonaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan badna mahadsantiin السلام عليكم